maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas-uulka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالي هديت عمر كورة سو بقت الشانل كان فضلا سبسكرايب لايك شير ان كومنت لأنه وذاك أصحابتا هذا هنه المام إنا كمبلال كبرتت كنا سو هذا مقال عصب فيديو كنا waxaan kusoo baahinayna tan faa'iido oo laga dhaxlo cabista biyaha diiran kulligan waxaan ogsoonahay sida biyuhu ay muhiim ugu yihiin nolosha una faa'iido badan yihiin jirka qofka looga baahan yahay inuu cabo 7 ilaa 8 koob oo biyo ah maalintii si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa laakiin waxaa dhici kara inuusan ogeyn cabista biyaha diiran gaar ahaan subax hore inay cudurro badan daawo yihiin haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa 7 faa'iido oo cajiib ah laga helo cabista biyaha diiran waa sida lagu soo qoray website-ka Bold Sky ee ka hadla arrimaha caafimaadka lambar 1 aburka sanka oo ku hagaago qiiqa ka soo baxaya biyaha diiran ayaa khafiifiya san xiranka iyo madax wareerka gaar ahaan dadka sanboorka qaba lambar 2 shaqada habdhiska dheefshiidka oo ku hagaagto biyaha diiran waxay nadiifiyaan oo dhaqaan habdhiska dheefshiidka cuntooyinka ku halaabay lambar 3 dareemayaasha jirka oo ku xasilo dareemayaasha jirka ayaa ku xasilaya gaar ahaan marka qofka xanuun ka dareemayo kala goosyada lambar 4 calool jirka ayuu wanaagsan yahay marka koob biyo oo diiran aad cabto wuxuu garab kugu siinaa in calool jirka uu ka yaraado caloosha wuxuu garab ku siinaa in saxarada banaanka ay iskaga saarto lambar 5 miisaanka jirka ayuu dhimaa koob biyo oo diiran oo aad joogtay cabistiisa subax walba wuxuu la dagaalamaa xirta wuxuuna dhimaa miisaanka qofka lambar 6 jirka ayaa sunta looga soo nadiifiyaa biyaha diiran waxay dhiirigeliyaan endocrine-ka jirka kuwaas oo soo saara hormooniska sidaa darteed jirka ayuu si wanaagsan dibadda uga soo saaraa dhididka fara badan kaasoo suurtagelinaya in sunta banaanka ay imaato lambar 7 waa xanuun baabi'iye dabiici ah biyaha kulul waxay dhiirigeliyaan unugyada jirka inuu dhidid fara badan oo ka burqado taasoo xubnaha u saamaxaysa inay nasasho dareemaan waa arrin keenaysa nooc kasta oo xanuun oo ku hayay inuu kaa khafiifo lambar 8 hurdo wanaagsan ayaa ka helaysaa haddii ay hurdo xumo ku hayso waxaa fiican inta aadan seexan ka hor inaad koob diiran aad ku dhifatid hurdo xasiloon oo degdeg ah ayaa ka helaysaa lambar 9 daalka ayaa lagu yareeyaa haddii aad cadaadis badan aad ka dareemayso shaqada iyo nolosha waxaa laga rabaa oo keliya inaad cabto biyo diiran si daalka aa ugu yareedo jidhka lambar 10 jirka ayuu qaleelka ka ilaaliyaa marka aad cabto koob biyo oo diiran wuxuu jirka helayaa qoyaan maalintii oo dhan arrintaas waxay kaa ilaalinaysaa mushkilooyinka qaleelka ka dhashta oo ka mid yahay garaacanka wadnaha amaansiga xilliga maalintii daalka iyo madax xanuunka asxaabta qaaliga fiidiyogan hadduu ku xiiso geliya like saar hana hilmaamin inaad subscribe noo saarto channelka tani fiidiyogan fiidiyowga ku xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo